ما شاء الله horta ma hadda ugu horeysa ilaahay baa leh oo diinta islaamkayna siiyey taa darteed waxaan ku furayaa suurat al-faatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين marka labaad hadalkaygu saddex qaybood ayaan iniigu qaybinayaa ta ugu horeysa waxa weeyaan yaan daacad u ahay caddayna maxaan u hayaa ta labaadna waxa weeyaan 34 sannadood ayaan macallin jaamacadeed professor ka ahaa Soomaali maxaan u qabtay anigoo soo koobaya 4 sannadood soo socotana hadday odayada iyo aftidu ii hiiliyaan hiilkaygii halkeen gaadhsiin doonaa weeyaan markaas ta ugu horeysa 34 sannadoodeen macallinka ahaa saddex qalab ayaan sitay mid qalinkaygu ahaa midna codkaygu ahaa midna qalbigaygu ahaa saddexdaa waan mideeyey waxaan u mideeyeyna qarannimada Soomaaliyeed meel han joogaba inaan ku daafaco waxaan u malaynayaa haddii taariikhda dib loo raaco markii dawladdii militarigu jirtay ee waqooyi la xasuuqayay maqaalkii ugu horreeyeen qolo anigoo macallina 1986 cinwaankiisaan idin xasuusinayaa wuxuu ahaa cinwaankiisu wuxuu ahaa marka af Ingiriiska lagu sheego the predatory state and the peasantry dawladda budhcadka ah iyo dadka beeralayda laynayso magaalada Gabiley markii jaadka laga goynayay iyo koon waxba loo qaban taswiiraheegina waan hayaa laba magaalada tan Muqdisho markii Itoobiyaanku ay soo duuleen 2006 in maxaakiimta la shaqeeyay geed dheer iyo geed gaabanba waan u fuulay in dadka reer Muqdisho iyo koonfur iyo Soomaali oo dhan aan Itoobiyaanka uga heeliyo codkaygii maantana weli uu taagan yahay saddex markii qabqablayaashii ay doonayeen inay dastuur ku qoraan magaalada Nairobi 2004 waxaan ahaa qofkii la weydiiyey ee Jumciyadda Quruumaha weydiisay bal waxaan in la hagaajiyo dastuurka jira maanta mid ka duwan oo haddana federaal ah oo isku tolaya dadka ayaanu ka soo saarnay qalinkan ugu hiilinayay ummadda weeyaan ta kale markii dooddu ay ka bilaabantay baddeenna Kenya inagu haysato waxaan u malaynayaa qofkii raadiyo Muqdisho ka hadla ee Soomaali ku ambariyay inay arrintaasi socoto Cabdi Ismaaciil Buha ta ugu dambayseen anigoo soo koobaya jaamacadda Amuud waxay ahayd iskuulkii aan ka soo baxay dhexe sare waxaan ka mid ahaa dadkii abaabulka u galay inay jaamacad noqoto oo magaceeguna Amuud u ahaado waxaan ka soo shaqeeyay oo wali la shaqeeyaa oo guddiga sare ee lagu aaminay jaamacadda Muqdisho xubin baan ka ahay takismaayana xubin baan ka ahay haddaba anigoon ku fogaanayn waxaan soo qabtay aan inii sheego waxaan qaban doono haddaad ii hiilisaan si qaranka hanugu hiiliyo ta ugu horeysa waxa weeye in dadkii iyo ummaddii la mideeyo waynu kala daadsannahay waa koobay ka noqonaysaa hawshayda xaqii waqooyina xamar laga helo ayay noqonaysaa inayna anigoo xilkaa haya hayna xamar ka soo bixi doonin markab xoolo ishina sida oo magaalada Berbera jooga in fasax looga qaado Muqdisho inay taasi dhamaataan ku ballan qaadaya waxa kale oo ku ballan qaadaya waxa weeye caasimadda iyo dawladda halkan fadhida inayna xooggeega ku isticmaalin inay gobollada cunaqabatayso si xaq darro ah
cunaqabatayn dowlad dhexe kama qabato dadkiisa sidii ka dhacday Kismaayo. waxaan ku dadaali doonaa haddii alla ka dhigo in la keeno federaal dadka mideeya een dadka kala qoqoobin inuu yimaado. hay timaadana dowlad hufan oo dadka u shaqaysa een dadka adoonsan una dadku u shaqaynayada ayaan ku dadaalanaa inaan keeno. ta ugu dambaysa waxa weeye in la xoreeyo magaalada Muqdisho oo sanad gudaheed doorashada dabadeed inay dadku helaan reer Muqdisho degani inay doortaan guddigii maamuli lahayd banaadir iyo duqeydoodii inay iyagu doortaan oon kolba nin madaxweynihii u soo magacaabin. taana waan ku dadaali doonaa. waxa weeye inaan xoog saari doono qalbi iyo qalinba sidii loo soo naasnuujin lahaa Soomaalinimadii sidii loo soo naasnuujin lahaa Soomaalinimadii. haddaba sidee baan u hirgelinayaa waxyaabaha aan ku tala jiro? tilmaam baan idin siinayaa. iguna garrama ila hor fadhiyana arrintaas. anuu halkan shaqo umaan soo doonan. waxaan waddanka geliye mooyaane waxaan ka qaato ma dhacaso. haddaba haddaad jagadaa ii dhiibtaan mushahar baan qaadan doonaa. mushaharkaa koob biyaa ka cabbi maayo. sida soo socotana waanu isticmaali doonaa. waxaan abuuri doonaa han samayn doonaa scholarships ardayda Soomaaliyeed ayay mushaharadaasi noqon doontaa min Zaylac ilaa Raas Kamboni. sidanna way u qaybsami doontaa. kow jaamacadda Timacadde ee ay iskuulkii dhexeen ka soo baxay magaalada Gabiley ee qalax la odhan jiray 2 scholarship bay heli doontaa oo mushaharadeeda ka iman doonta. 2 jaamacadda Camuud oo ay iskuulkii adduunka ii furay markan secondary-ga ku jiray 2 scholarship ayay heli doontaa. 3 jaamacadda Hargeysa oo ahayd caasimadii gobolka Waqooyi Galbeed 2 scholarship ayay heli doontaa oo mushaharadeedu hay bixin doonto. 4 magaalada Berbera jaamacaddeedu 2 scholarship bay heli doontaa. magaalada Burcays jaamacaddeedu 2 scholarship ayay mushaharadeeda ka go'o qaadan doontaa. magaalada Garowe ilaan Soomaali baan nahay han reer waqooyi ahaado Soomaalina waan nahay. dadku inuu ku sinaadana Ilaahay iyo islaamnimada ku farasa. jaamacadda Garowe 1 scholarship bay heli doontaa oo mushaharadeedu bixin doonto. jaamacadda Muqdisho University-na 1 scholarship bay heli doontaa. jaamacadda ummadda Muqdisho ku taalaana 1 scholarship bay heli doontaa. jaamacadda Baydhabo 1 scholarship bay heli doontaa. jaamacadda Kismaayo 1 scholarship bay heli doontaa. jaamacadda Djibouti waa Soomaali baan nahay soo maaha. jaamacadda Djibouti 1 scholarship bay heli doontaa. jaamacadda Jigjiga 1 scholarship bay heli doontaa. jaamacadaha ku yaala Mandheera iyo Gaarisa 1 scholarship bay heli doontaa. marka walaalayaal odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada la socota hana u hiiliya waddanka ee hiiliya maanta. waxaan doonayaa calaamadan inaynu qaadanno. gacanta sawtii midig maaha. maxaa ku yaala? 5 farood baa ku yaala waa 5tii Soomaaliyeed. markaynu wax doonano midigta han taagno 5tana han taagno. calaamadeenay noqonaysaa wixii maanta ka dambeeya. waxa weeyaan qaran Soomaaliyeed, qowmiyad Soomaaliyeed oo islaamnimo iyo Soomaalinimo ku dhisan bay noqonaysaa. waa gacanteennii waaye. haddaba waxaan ku soo gabagabaynayaa hees u tiriyey Maxamed Cali Kaariye Allah u naxariistee. maxamed Mooge iyo Shankaroon Axmedna hay qaadaan. inii heesi maayo laakiin kelmadaheegii baan inii sheegi doonaa. haddaad doontaana waan iniigu dari doonaa heesta. waxay Shankaroon odhanaysaa hadda u fiirsada walaalayaalow. dantu wada jir bay dayac kaga fogaataa. haddaan isqabsanno gacmaha dayac ma arkanno. dantu wada jir bay
dayac kaga fogaataa karti iyo dadaal baa qarannimo daryeele karti iyo dadaal baa qarannimo daryeele baryootan qarannimo ma keenayo dadku waxay ka maalaan kolba siday u daajaan haddaad xoolaha raacdidood meel wanaagsan geysid caano badan ayaad ka heli doontaa dawlad waxaa samaysa dad waxaa sameeya isku kalsoon cidnaba aanu harabran ilaahay mooyaane ayuu dadaalkaygu yahay ila garab joogsada innakuna waad salaamantihiin soomaaliyana ha noolaato